بصمة شباب، بصمة شباب، بصمة شباب، بصمة شباب. سنحطم اليأس المدمر بالرجاء، ونمد جسر الحب بالأشواق. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. intaa kadib anigu waan yaala cabdi cawaalin mar kaliya barnaamijka hogga tusaaleynta dhalinyarta. barnaamijka maanta waxaan ka qayb qaadanayaa ciwaanka soo socda. barnaamijka maanta ciwaankan ka qayb qaadanaya waa mar kaliya su-aal dhalinyaro maxaa dhiman. dhalinyaro maxaa dhiman markaan leeyahay ma ahin inayn waxba ku fiicnayn, laakiin dhalinyaro waxaa jirta waxyaabo badan oo ku fiicannahay oo mudan inaan isku dhiirigelino. inteena inaga dhimanay inaan isku tilmaamnaay oon isku hagnayo waa lagama maarmaan. dhalinyaro intaan su-aasheeda jawaabteeda u gudagelin, haddii laba su-aalood iyo labadoodii jawaabood aynila wadaago, waa maxay wadaniyadu? dhalinyaro wadaniyadu waa jacaylka qofka uu jecel yahay dhulkiisa hooyo, taasoo keenta inuu qofku jeclaado, uu ku farxo marka uu dhulkiisa hooyo wax wanaagsan uu ku sugan yahay ee uu fiican yahay. marka uu dhulkiisa hooyo xun yahay oo uu dhibaato ku jirana keenta inuu qofku ka walwalo oo keenta in uu ku dadaalo sidii uu dhibaatada uga saari lahaa. wadani waa kuma? wadani waa midka bulshadiisa la qaybsada dhib iyo dheefba, kuna dadaalo dhibta sidii uu uga saari lahaa. sidaynu wada ogsoonahay dhalinyaro, maanta adduunyada haddii xaflad maamuuskeyga iyo maqaamkeygu sarreeyo lagaa marti qaado, ka hor inta aan lagu weydiin invitation waxaa lagu qiyaas qaadanayaa dirayska iyo labiska aada xiran tahay. waxaa suuragala in uu ku joojiyo qofku invitationka kaa qaadanaya isagoo u arkay in aada madasha u qalmin dirayska aada xiran tahay daraadeed. haddaba dhalinyaro, haddii wixii yaryaraa ee fududaa laysku eegayo hugga sare, maxaad u malaysaa hugga intaa ka sarreeya inuu inaga bixinayo? haddaba hugga ugu sarreeya ee lagu tartamayaa maanta waa nocmo. marka aynu marayno eraboodyada, marka aynu la kulanno qof dal kale ka imide, aynu wada sheekaysanayno, ku weydiin maayo magacaaga, kuna weydiin maayo jaamacadaada, kuna weydiin maayo qabiilkaaga. waxa uu ku weydiinaya waa dalka aada u dhalatay. marka uu kasoo dhammaado dalka aada u dhalatay afkaaga, waxaa kala cadaanay inaad tahay qof goba oo adduunyadan mutaysta in uu ku dul noolaado, sharafna ku dul noolaado. iyo waxaa kala cadaanay inaad tahay qof guna oo adduunyadan saa-id ku dul ah. haddaba qiimaha dalka aad ku nooshahay waa adduunyada ka taagan yahay waa halkaas. waxaynu wada garanaynaa marka aad dalkana waxbarasho u tagto, eed wax baranayso, ee dad kala duwan aada la kulanto, waxa ugu horeeya lagu weydiinayahay wax kala maahay, waxa lagu weydiinayaa dalka aada u dhalatay. haddaba dhalinyaro, haddii dalka aan u dhalanno markasta xaggaa lagu weydiinayo, haddii aynu dalkeena tacab iyo dadaal dheer aynu u gelin, marka aynu dalkeena magaciisa afka kasoo bixino ayaa laynaga kala yaacay. dhalinyaro, barnaamijkeena waxaa isku weydiinay su-aasha ah maxaa dhiman? dhalinyaro maxaa dhiman? dhalinyaro waxa dhiman wadaniyad baa dhiman. dhalinyaro waxay naga dhiman wadaniyadda ay naga dhiman. dhalinyaro markaan leeyahay wadaniyadda ayaa dhiman, waxaa mudan qof kasta oo soomaaliya meesha uu ku noolyahay inuu ku noqdo wadani. wadanimadu waata ku siinaysa, wadanimadu waa dameerka ku siinaya in aada caagada biyahaad ku cabto meeshii ku habbooneed aada ku rido. dhalinyaro, wadanimadu waata keenaysaa inaynu sida ugu fiican aynu la xisaabtano madaxdeena, inagoon ku xigsanayn qabiil, xigasho, garabsasho, intaaba inagoo midna ku xigsanayn. dhalinyaro, sidaynu wada ogsoonahay mujtamaca soomaaliyeed mushkilada ugu weyn ee haysata aynu wada garowsannahay waa qabyaalad. qabyaalada diinteenu islaamku aada ayay uga hadashay, meel adag ayay iska istaagtay, qabyaalada iyo cunsuriyadaba. qabyaalada markaynu eegno, haddaan soo qaadana asxaabtii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam, waxaa dhacday maalin maalmaha kamida in laba asxaabi oo midna uu yahay muhaajiriinta kasoo haajirtay maka, midna uu yahay asxaabtii ansaareed, ayaa waxaa dhacday in laba asxaabi isku dhacay. kabacdi asxaabigii ansaartii ayaa waxa uu dhahay yaa ansaaray, xagga inagu ka odhan soomaaliga tallooyo yaa reehebela. markaas asxaabigii kale muhaajiriintii meesna waxa uu dhahay yaa muhaajiriinay. kabacdi nabigeena caleyhi salaatu wasalaam ayaa maqlay. markii uu maqlay nabigeena caleyhi salaatu wasalaam waxaa ku yiri dacwuha fa inaha muntina, waa iska daayay bahasha qabyaalada la dhahaa, way uraysaa, waa qurun. asxaabtii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam
markay maqleen hadalkaas meel ayay iska dhigeen qabyaaladii. markii meel ay iska dhigeenna waynu wada ogsoonahay walaaltinimadii dhex martay waxay gaadhay in xaasas la isa siiyo. kabacdi markii ay xaggaa meel iska dhigeen ee walaaltinimadii meesha ay gaadhay waynu wada ogsoonahay islaamka meeshay gaadhsiiyeen. islaamka ansaariyo muhaajiriin waxay gaadhsiiyeen adduunyada caalamka oo dhan iyagaa gaadhsiiyey. markaynu tusaalaha ka qaadano diinta islaamka marka waran inaga oo soomaaliya haddaynu qabyaalada xagga iska dhigno xaggeynu inagu gaadhayna? su-aashaasi waa su-aal aan iniga dhalinyaro ini weydiinayo oo inagu inaad isweydiisaan ay mudan tahay. dhalinyaro maanta barnaamijka ilahaa kooban ayaan kaga qayb qaadanaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.